madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ku guda jira safarkii dheerna ee magaciisu ahaa Buuriya Bannaan ayaa goor galab dhaca soo gaadhay degmada Dhoqoshay ee gobolka Togdheer dadweynaha u tiro badan oo ku gaashana gaadiid caleemo qoyan calanka Soomaaliland iyo fardo ayaa kaga hor yimid duleedka degmada Dhoqoshay kuwaasi oo soo gulbiyay bogcad ballaaran oo loogu talagalay in wafdiga madaxweynuhu kala hadlaan bulshada Dhoqoshay dadweynahan ka qayb qaadanayay soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland ee degmada Dhoqoshay ayaa ku dhawaaqay halku dhigay ereyo ka turjumaya soo dhaweynta madaxweynaha iyagoona ruuxayay calanka Soomaaliland xildhibaan Cali Mareexaan gudoomiyaha degmada Dhoqoshay duqay iyo waxgarad deegaankaasi ayaa soo dhaweeyay wafdigan madaxweynaha iyagoona u soo gudbiyay baahiyaha degmada Dhoqoshay mudana madaxweyne halkan waxa kugu soo dhaweynaya dadweynaha degmada Dhoqoshay oo ilaa saaki heegan u ahaa ilaa iyo 5tii subaxnimo markaan tukanay u taagna inay indhaha ku saaraan madaxweyne hogaamiyaha xagga waxa lagu gartaa ninka jira waxa lagu gartaa sida ummadiisu ugu helan tahay kuna amaani maayo kuna fahmin maayo laakiin waxa xaqiiqo weyn mudana madaxweyne عاود سوقادي تكمل بقوشي تتكلم واركتها سيدو كوكو إليها مع الزقام العليم واروان كابر كوينا حقي يقلب على القبل بالي على القبل حصان حقي يقلب بالي وانو كابر كوينا مدحويني واكو دورانينا سموك لبانو كو دورانينا حسبك انو دورانينا كرميانو دورانينا وراها كوس على حسبك كترسن بانو دورانينا وارتين لبطيوسو رنتي معها دورانينا انو معارض ميلو نحينو حتى waxa barbaryaala xukuumadda intii ay jirtay runtii waxaan ka mahad celinaa waxyaabaha muuqda ee ka qabatay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waa idinku soo dhaweynaynaa meelka gees ilaa gees waxa aad qabateen baa idinku soo dhaweynaya ballanqaadka ummaddu idin siinayso ee leedahay dib baanu idin dooranaynaa qaar waxaan ka maqlay for life intuu nool yahay baynu dooranay isagii xukuumaddiisa yaaban ka maqlay qaarna shan bay taabanayaan for life kaynu dayna wixii ilaahay gaarsiiyay haweeniyinta sidii ragii hore u sheegay maanta 5 sanadood iyo intuu socon karaba kollayba mid u dhaama inaanu dadka u imanay maan anigu qabaa sidaas oo sheegay soo dhawow degmada Dhoqoshay adiga wafdiga ballaaran ee golayaasha qaranka ka kooban ee hogaaminayso hay'adda baahida jirta degmada ka jirta wixii suurtagala ee madaxweyne la dabooli karo anagoo hubnaa inaan waxba laga xistiraynin hore iyo dibtoona waxaan rajaynaynaa in la dadaalo loona qabto wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa shacabka ku bogaadiyay dareenka kalsoonida leh ay ku qaabileen wafdiga madaxweynaha Soomaaliland arintaas oo ayna tustay intii aanu soconay ilaa bari fog ilaa halka galabta aanu marayno dhammaan dadka reer Soomaaliland gobol kasta iyo degmo kasta ka soo jeedeen waqti kasta oo habeenkii gudayno iyo salaad kasta oo kala hayno in rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel iyo haweenku ay taagnaayeen dariiqyada iyagoo la taagan marxabaysiin qalbi wanaagsan soo dhaweyn qiimo leh ayaanu runtii kala kulannay oo aan la qiyaasi karin intaasi kadibna madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo hadalka qaatay ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta mugga iyo miisaan kale ee shacabku ku qaabileen waxaana uu sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu sheegay in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay in horumarka Soomaaliland gaadho mintuulo ilaa degmo aad baan ku mahadinayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh aad noo soo dhaweyseen aniga iyo waftiga ila socdaba waa sidii caadadeediin ahayd waa sidii dhaqankeediin ahayd reer Dhoqoshay taariikh fara badan sidii looga sheekeeyay ay ku lahaayeen ummadda ku leeyihiin halkii dheeraa ee loo soo maray xoreynta dalkan qiimo weyn iyo qaayo weyn iyo taariikh iyo magac iyo sharaf way ku lahaayeen maanta waxaan filayaa aan rajaynayaa inay istaahilaan waa inay istaahilaan in wax loo qabto sida dalka intiisa kaleba qaybtiisii kastaba intii loo tari karay aayaha wax itaalka ummadda iyo awoodda dowladnimada intayna gaarsiin karto si cadaalad leh loogu qaybsho
oo meel walba wixii ka suurta gala shacbigeed iyo dadkeed isugu tagaan oo ay wax ka qabtaan insha allahu tacaala baahiyaha la soo sheegay ee laga sheekeeyey gobolka yaalla iyo degmada taallaba wixii aanu ka qaban karno waanu ka qabanaynaa waan isu tegaynaa madaxdii dowladda inteedii badan wayla socotaa waa aragtaan way dhegaysanaysay noot baanu qaadanaynaa ama waxaanu qaadanaa qoraal baanu ku qaadanaynaa waan darsaynaa wixii noo suurta gala waanu ka qabanaynaa dalkayaga iyo dadkayaga waa kuwaan u shaqaynaynay waa kuwaan u halgamaynay waanu kuwaan soo halgannay taarikhda inta noo hadhayna waa kuwaan u shaqayn doono horumarintooda iyo kobcintooda iyo horumarintooda aan u shaqaynayno insha allahu tacaala sacabkan mushxaradan iyo ciyaartanba waxay qayb ka ahayd soo dhoweyn ballaaran oo shacabka deegaanka dhagaxdheer ku qaabileen waftiga ballaaran ee uu hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo kuwaasi oo dadweynuhu ay diyaar u ahaayeen qaabilaadda waftigan oo ku beegnaa waqti habeenimo balse socdaalka madaxweynaha Soomaaliland oo ku weyna qulubta iyo qalbiga dadweynaha ayaa saamaxay in dadweynuhu si dareen shucuur wadaniyadeed leh ay ku soo dhaweeyaan muftiga madaxweynaha Soomaaliland taasi oo ka turjumaysa sida ay shacabku ugu heelan yihiin hoggaanka suuban ee Dr. Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu ku hogaaminayo qarankan Soomaaliland maamulka degmada dhagaxdheer odayaal duqeey waxgarad iyo xildhibaan laki oo ka tirsan golaha deegaanka ee Burco ayaa kelmado soo dhaweyn ku qaabilay waftiga madaxweynaha iyagoo geesta kalena farta ku fiiqay baahiyaha degmada dhagaxdheer waxaan ku soo dhaweynayaa gacmo furan haddaanu nahay deegaanka dhagaxdheer gacmo furan ayaanu idinku soo dhaweynaynaa qalbi faraxsan aad iyo aadna waanu idinka mahad celinaynaa waxqabadka ballaaran ee adiga xukuumaddaadu muddadii koobnayd aad xilka hayseen aad qaranka u qabateen taasoo ma garanaysaa ah wax aan la dafiri karin oo ma garanaysaa muuqanaya indhaha caafimaad qabaan ha arkayaan waxaanu nahay dad wax qabsaday intaa arkaysaan waxaa qabtay deegaankaa qabsaday barnaamijka dawladduna waxa weeye ciddii wax qabsatay in wax loogu daraa wax loo qabta madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa shacabka deegaanka dhagaxdheer uga mahad celiyay waqtiga goorta dambe ay diyaar ka yihiin una heelan yihiin inay soo dhaweeyaan Cabsaaq Farax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco